Bismillahirrahmanirrahim. Maalin wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Dunida News TV. Waxaan maanta halkan idinkula wadaagi doonaa muuqaal soo koobaya taariikhda guud ee degmada Balcad ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Degmada Balcad waxay ka mid tahay degmooyinka gobolkan Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya, waxayna leedahay taariikh fac weyn oo la xiriirta halgankii gumaysidiidka, horumarka waxbarashada iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka. Taariikhda halganka iyo gumaysidiidka ee degmada Balcad. Balcad waxay ahayd goob muhiim ah oo kamid ah meelihii ugu horeeyay ee la dagaalamay gumaysigii Talyaaniga sanadkii 1905. Ciidamada gumaysiga Itoobiya ee isku dayay in ay gudaha u soo galaan gobolka ayaa la kulmay jab weyn dagaal ka dhacay degmada Balcad oo markaas loo yaqiinay Taytayli. Halyeeyada sida Sheekh Xasan Barsane ayaa hogaaminayay dagaaladaas, isagoo abaabulay ciidamo farasley ah oo ka hortagay duulaanka labada dhinac ee Talyaaniga iyo Itoobiya. Horumarka warshadaha iyo dhaqaalaha degmada Balcad. Balcad waxay caan ku ahayd warshada dharka ee Somali Tex oo la dhisay 1968. warshadan waxay ahayd tiir muhiim ah oo dhaqaale, waxaana sidoo kale ay shaqo abuur iyo horumar dhaqaale u ahayd bulsho badan oo Soomaaliyeed. Sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan wuxuu caan ku yahay wax soo saarka beeraha, gaar ahaan dalaga bariiska iyo sidoo kale warshada sokorta ee Jowhar oo ayaduna la dhisay 1962 oo ayaduna ka shaqeynaysay horumarinta sokor xilligaasi ay dawladda Soomaaliya u iibgeyn jirtay dalalka dariska la ah. Dhaqaalaha iyo kheyraadka dabiiciga ah ee degmada Balcad. Balcad waxa ay ku taallaa agagaarka webiga Shabeelle, taasoo ka dhigaysa deegaan ku habboon beeraleyda. Dadka deegaanka waxay ku tiirsan yihiin beeraha, xoolo dhaqashada iyo kalluumeysiga. Gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu leeyahay xeeb dhirirkeedu yahay in ka badan 230 kiiloomitir, taasoo kor u qaadaysa fursadaha kalluumeysiga iyo ganacsiga xeebaha. Maamulka iyo amniga degmada Balcad ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Balcad waa Qaasim Cali Nuur oo hore uga mid ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Degmada Balcad waxay mararka qaar la kulantaa dagaallo ay sameynayaan aanooyin qabiil iyo sidoo kale khilaaf soo kala dhexgala dadka deegaanka, taasoo sababta nolosha dad la jeclaa in lagu waayo. Balcad waxa ay leedahay taariikh qani ah oo ka turjumaysa halgan, horumar iyo iskaashi bulsho. Degmada waxay muhiim u tahay gobolkan Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan Soomaaliya, iyadoo leh kheyraad dabiici ah iyo dad leh karti iyo hibo. Guud ahaanna muuqaalkeennii maanta ee aynu kaga hadlaynay taariikhda guud ee degmada Balcad intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Waxaan idinka codsanaynaa in aad inagu soo biirtaan oo page-ka inoo follow garaysaan, sidoo kale muuqaalka like inoo saartaan si dad badan uu gaaro. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.